jamba noqday saribadi baan gali kari waayay anaga ka qurux badan anaga ka hanti badan dhawaan ayay soo gudbisay muuqaal bulshadu ay muddo badan hadal hayeen kaasi oo ay ku soo gudbisay baraha bulshada waxaana ay ku sheegtay inay tahay gabadha ugu quruxda badan magaalada Burco uguna hantiilaysan taasi oo magaalada Burco ku noqotay dhacdo ugu ku ah guud ahaanba haweenka ku nool magaalada Burco maadaama ay gabadhani sheegatay inay ugu qurux badan tahay haddaba Nuura Maxamed Yuusuf oo maanta waraysi gaar ah la yeelanay ayaa waxa ay naga warbixisay sababta ka dambeysay in muuqaalkani ay soo gudbiso iyadoo ugu dambeyntii noo sheegtay in muuqaalkaasi oo baraankii ahaa isla markaana ay bulshada dhexdeeda ku sameeysay challenge aan hore loo arkin waana tan iyadoo arrintaasi naga warbixinaysa magacay waa Nuura Maxamed Yuusuf maalintii oo gabadhii baraankiga samaysay baan ahaa baraankiga gaaray baraha bulshada waxa jirtay in muddooyinka ugu dambeysay si weyn aad u qabsatay baraha bulshada gaar ahaan muuqaal aad duubtay oo aad ku sheegaysay inaad tahay gabadha ugu quruxda badan magaalada Burco bal arrinta waxaad naga siisaa xog waxba kama jiraan bay ahayd waxa ahayd baraanki bay ahayd kulay maadaba munaasabadihi ciid lagu jiray kulay waan iska xaraabaysanayni anigana sida ogtahay ma garanaaye intii baraankiga aan sameynayay adduun weynuhu ka dhaca ummadii oo dhan buu qabsaday dadku run bay moodeen war maxay ahayd telefoonka waa jaam garoobay anigi jamba noqday saribadi baan gali kari waayay anaga ka qurux badan anaga ka hanti badan anaga naastachiyam saa ku baraanki bay ahayd waxaan naagihii waan u taag waayay raggi waxay arkeen in hanti isnacday yahay war hantina ma hayste hada dadkii aan maxay tahay lacagayo ka sugay bisha inay dukaanka inaan haysto lacagayo wiiso xaroodaan qof la wuxuu ganacsato way baad noqotay ama aad ahayd ama noqotayba waayahay waxaad ii sheegtay in arrintaas ay baraankii ku timi baraankiga markaa ma adiga hindisay mise waxay ahayd fikrad dad badan kula soo qaateen ma fakarina Hargeysa ka yimid soo qaaday bay ahayd isaga igu samee waanu sameeyay already maha baraankina way ahayd waayahay markaad baraankiga waxa ka raali ahaadaan baraankiga dayay wax walba iska qaadan umadaas waa sax markaad baraankiga samaysay falcelin noocyad kala kulantay bulshada saameyntii ugu laaya ku bandida aragtay inta muuqaalkaasi aad samaysay maxay والله واتك قربيسايو عايو دورتي iyadoo iska far badan tahay ana runtii la caayo ma jecel oo lagu dambaabo ana cid ku dambaabo ma jecel laakiin dad iska xaraabisanayo kaftan oo jaala baraankiga sameeyay baan ahayn baraankigaas ay dib iska ahayd munaasabadii ciid iska ahayd dadku yar run moodin xaajiyadna ma yihi lacagna wixii ilaahay siiyay adduun wixii ilaahay siiyay baan haystaa yani saar u hadlay ma yahay xaaladu adigu markaad muuqaalkan samaystay ma istiri waxa tahay gabadhii ugu horeysay magaalada Burco sheegatay inay qurux badan tahay maadaama aan gobolkan laga sameeyay wali muuqaal noocaas oo kala ama baraankiyada ay aad ugu yeedin magaalada Burco gabadha saaran waa baraankiga samaysay kuwan ku dhiiray laakiin raali hala ahaado markaa bulshadii ku daawatay imika maxaa leedahay wallahi bulshadii daawatay waxaan uga fal celinayaa raali ahaada baraanki bay ahayd wax kastana yaan rumaysanin wixii faafay adduun weynaha ka kala dhacay baan arkay wixii adduunka meel walba laga soo wareeyo telefoonada jaam garoobeen talaabaan qaadi kari waayay saribadii baan gali kari waayay guriga ka soo bixi kari waayay marbaas ma dhaqaab ma xidhataaba marka iga dhima waa leeyahay marka waxaasna challenge baraanki bay ahayd kulli waxa tahay hooyo Soomaaliyeed marka arrintan markaad samaysay kulli carruurtaadu way isticmaalaan baraha bulshada kale markay daawadeen falcelin noocyad kala kulantay ubadkaaga bisinka ubadkaygii familkaygi dhammaan dhaleecayn iyo cambaar baa dusha laga tuuray hatta waa la xirigaa marka heerkaas oo dhan inuu baraankigaas gaarayo umaan maleynay marka maxay tahay raali ahaada dhammaan wax alla wixii muuqayga iyo magacayga iyo telefoonkayga bahayo iga raali ahaada codadkii aan duubay soo gaadheen oo dhan markaan waxay ahayd markii kugu horeysay aad soo gasho baraha bulshada mise muddo badan baad ku jirtay baraha bulshada waxaad ahayd dadka sameeyay challenge-yada iyo baraankiyada muuqaalada hore u waday ma baraankigu markii ugu horeysay bay ahayd laakiin baraha bulshada waan ku jiraa baraha bulshada waxaad dadka caadiga u isticmaalaa dadka waayahay aad baad maasan